الله الرحمن الرحيم. waxaan rabaa inaan maanta halkan kaga wadaago golaha wasiirada oo ka dhacay oo ra'iisul wasaaraha xukuumadda dalka Soomaaliya madaxda caalamka ayaa maanta waxaa lagu ansixiyay sharciga tuurista iyo hawada ayaa lagu ansixiyay sharcigaas oo mari doona kadib loo gudbi doona baarlamaanka iyo booliska sharci dejinta iyo aqalkiisa kadib loo gudbi doono waxaa la keenay intiisa sharciyeedka dambiyada kursiga oo isagana xiliista dambe ugu darbaysan yahay in la ansixin doono waxaa kaloo la keenay sharciga naqshadaynta magaalooyinka oo isagana dib loo dhigay xiliista dambe waxaa kale oo laga hadlay waxaa ugu muhiimsanayeen arrimaha amniga iyo caasimadda iyo amniga dalka iyo dagaalada ka socda maaragtay Puntland iyo Somaliland oo iyagana la sheegay nambarka qof ee labada aqbal fiiso wasiirka amniga sheegay oo lixdan qof sheegay isla marka ay waxaa kale oo wasiirka amniga ka warbixiyay xaaladda amniga ee magaalada caasimadda ee aad wanaagsan tahay wax khilaafin aanay ka jirin wixii xalay meesha ka dhacda ay ahaayeen waxyaalo oo maaragtay gaadiid oo maaragtay aanay ahayn sidii dadku moodayeen maaragtay waxay ahayd dambacaha lagu fulo marka waxa uu sheegay oo kale in amniga caasimadda oo markii hore barnaamijkii oran jiray xasilinta amniga loo bedelay sugidda amniga caasimadda muqdisho sidii horeba ay golaha wasiiradu u ansixiyeen waxaa la mamnuucay oo horeba mamnuuc u ahaa in guriga dabajeexa ah aan lagu wareegin caasimadda magaalada muqdisho aan ka ahayn 4 guri oo aakee ah wax ka badanna aan qaadan karin taasna waa la isla soo hadal qaaday si hore loo ansixiyay haddana waa la isku baraarujiyay inaan magaalada lagu wareegin maaragtay guryaha noocaas waxa warbixin la xiriirta heerka dhammaaday ee mashruuca deymaha ama deyna cafiska laga dhageystay wasaaradda maaliyadda wasiir Diille oo ka warbixiyey in maaragtay mashruucaas uu meel fiican u marayo SMB2 oo hore looga soo gudbay oo ahaa kii ay dowladdu ku guuleysatay ee wixii laga rabay dakhli ka badan ay soo xareysay oo Soomaaliyana aad loogu ammaanay dib weynna ay noqotay ugu soo guuleysay ummadda Soomaaliyeed ayaa haddana waxaa la galay SMB3 oo isagana la iska rabo in maaragtay sidii gacmaha la isku qabsaday xukuumadda iyo maaragtay shacabka Soomaaliyeed iyo madaxweynaha maaragtay gacmaha inta la isku qabsaday loo fuliyay oo guul u noqotay soo guuleysay ummadda Soomaaliyeed ayaa waxaa la rabaa haddana in SMB3 isagana guul looga soo qaato oo isagana fuulaha looga baahan yahay ay yihiin inaan wax in dakhliga in la fuliyaa ay muhiim tahay iyo in maaragtay aan wax deyn ah aanay gelin dowladda Soomaaliya wax deynana aanay soo qaadin waxa ka mid ah in biometrics loo sameeyo ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo ciidanka booliska iyo ciidanka maaragtay nabadgelyada iyo ciidanka kasta oo jira biometrics kaas oo sheegaya maaragtay looma sameeyo maaragtay account oo ku sugan lacag waa waxyaalaha SMB3 la iska rabo waxa ka mid ah iyada laftigeeda in la sifo systemka lacagta ama procurement-ga wax lagu soo qaadayo oo ah maaragtay wasaaradaha maaragtay markay isticmaalayaan sheega running cost-gooda inay system sax mariyaan waxa kale oo warbixin hubinta iyo tirakoobka shaqaalaha rayidka laga dhageystay wasiir Saalax wasiirka shaqada iyo shaqaalaha waxaa hawlwadeennadiisa iyo hay'adihii markaa maaragtay loo xil saaray oo maaragtay shaqadaas iyo waajibaadka gudanayay waxa uu meesha laga sheegay in maaragtay 90% shaqadaas iyada ah ee maaragtay hubinta shaqaalaha dowladda rayidka ah la dhamaystiray in 7,500 oo shaqaalaha rayidka dowladda ah la diiwaangeliyey in 90% la dhamaystiray iyo in shaqaalaha guud ee dayroolka shaqaalaha dowladda rayidka iyo 5,198 ilaa 4,000 oo markaas waxa u dhimanaya ay yihiin maaragtay waxaadii aad ku yar haday 90% maraysan laakiin aan dhamaan safarada waxa uu wasiirka wasiirka ganacsiga safarkii tagay Turkiga ayuu ugu golaha wasiirada oo maaragtay oo dowladda Kuwait dowladda Kuwait iyo Turkiga ay ka wada hadleen wararkaas laga dhageystay waxa wararkan laga dhageystay wasiirka tamarta iyo maaragtay biyaha oo isaguna dalalka Kuwait iyo Portugal dalka Kuwait ku aaday wasiir Cusmaan Libaax oo isaguna
shirarkaasoo looga hadlayay maaragtay dhinaca biyaha wadamada carabta warbixin ina waxaa laga dhageystay wasiirka dhalinyarada ee sportska wasiirkiisu iyaduna ka warbixisay casuumaadii ay ka heleen dalka kuwait oo iyaduna maaragtay uga warbixisay gudaha wasiirada intaasay ku koobanaayeen qodobadii ugu muhiimsanaa maanta